بسم الله kusoo dhawaada cashirkeena macroeconomica waxaan qaadan doonaa cashirkeena 11aad cashirkeena wuxuu ciwaankiisa la socdaa waa labada cashir ugu dambeysa soo qaadanay oo ka hadlaya CPI-da GDP deflatorka iyo inflationka maanta waa qaybtii dambe qaybtii saddexaad qaadan doonaa waa qaybtii ugu dambeysay waxaan rabnaa inaan kaga hadlo inflationka weliisi qaybta CPI-da maadaama mar walba aad loo isticmaalo oo lagu bishan gareeyo marka wuxuu sheegayaa inflationka waxaa waaye waa sustained increase in the general level of price of goods and services in the economic waxaa la xiriira waxyaalaha badanaa kobaca ku dhaco badanaa markii levelada kala duwan ee priceska ku dhaco wax soo saarka iyo adeegyada iyo badeecadaha caadiga ah ee dhaqaalaha marka laga hadlayo CPI inflationka badanaa mostly waa used measurement badanaa sax lagu qiyaasaa la isticmaalaa GDP deflator badan lama isticmaalo laakiin sida haddii markaas ay tahay reason jirto waa loo isticmaalaa laakiin sida caadi publishingka mid kala sameeyo oo inflationka caadiga sicirka la xiriira badanaa CPI-da la isticmaalaa marka qaacidadana waaye qaacidada aan ku isticmaali doono marka inflationka waxaa lagu helaa waa CPI oo T ah T badanaa haddaa aragtid waa current waaye waa sanadka hadda lagu jiro waaye T minus 1 waxaa waaye waa sanadkan oo laga jiro sanadkii waxaa waa last year waa last year oo laga sii jaray hal laga sii jaraa waxaa lagu dhufanaa kadib qoraal lagu dhufanaa marka example la qaadan doonaa example kana ku fahmeynaa tusaalaha oo kale badanaa CPI-da markii saa camal ay tahay badanaa waxay ku imaadaa as index macnaha tusaalaha oo kale indexka wuxuu ku imaanaa waxaa jiro waxaa lahay CPI weight waxaa la jiro oo every item wuxuu leeyahay weight gooni ah oo totalka oo consumptionka oo kaga jiro macnaha tusaalahaan oo kale itemskan boqolkiiba imisuu ka yahay consumptionka wadankaas laga isticmaalo weightiskaas oo laisku wada daray waxaa kasoo baxaya 100 marka saas tahay adi inflation wixii marka isku sameeyay oo waxaa jira waxaa lalahay long run analyze iyo short run analyze jiro marka waxaa isticmaalaa waxaa aruuraa waa index waaye indexkaasa badanaa la isticmaalaa labada index la isku qaybiyaa tusaalahaan kale hadda CPI 11ka waa 160 waaye indexkiisa CPI-da 2 oo sanadkana waxaa waa 168 marka qaacidadeena isticmaalo waxaan rabnaa inaan soo saarno compute inflation in 2002 rabnaa inaan soo saarno waxaa haysanaa CPI oo sanadkii hore oo 11 ahaa kasoo qaad sanadka inaad ama iska dheh tusaalahaan oo kale 19 waaye kana 18 waa 2018 2019 waaye 2018 dhehti kan maxay 17 kuma dhamaan mugtahay 18 kana waxaa la 17 dheh sug saxeena okay kan 2017 ka dhahna kan 2018 ka dhahna okay waan xisaabina qaacidada waxay dhigaysay tan qaacidadeena aan soo qaadanin waa janji ku dhacay tusaalahaan sorry waa janji oo CPI T oo u taagan inflationka waxaa lagu horaa waa CPI oo current aniga maxaa 2018 kan dhahay waa 168 waa current ah oo 2018 kana waa CPI oo 17 ka ah waxaa meeqa waa 160 waaye 160 waxaa sameysaa halka jar waxaa ku dhufataa 100 okay saamka waxaa sameynaya marba
waxaa jira markii oo la taagan yahay xisaabta mar walba waxbaa hormaro. Hadda markii ka jarista iyo qaybista waxaa badanaa hormaraya oo qaybista hormarayso. Markaan isku qaybino markii 68 u qaybi just calculatorka tu isticmaal sidoo kale wuxuu kusoo saaraa 1.05 168 loo qaybiyo 160 waa 0.05 waayo minus 1 oo lagu dhuftay 100. okay intaan waa haysanaa ma waa okay haddii laga jaro waxaa soo baxaya 0.05 oo lagu dhuftay 100. okay boqolka isku dhufo waxaa soo baxaya markaas boqolka dhufo waxaa soo baxaya kadib equal waxaa waaye 5%. 5% micneed waxaa waaye sanadkan inflationka wuxuu kordhay boqolkiiba 5 ayuu kordhay marka loo babadhigo sanadkii lasoo dhaafay. marka inflationka saana loo xisaabiyaa. haddii aad fahmin just waxaa waaye just comment kusoo bixi. cashirkeena inflationka iyo priceka halkaan uu ku ogyahay. waxaa rajayn doonaa insha allah inaan qaadan doono mowduuc cusub oo markaas la xiriira macroeconomic. insha allah wixii aad fahmin waa weydiin kartaa. cashirkan halkaan kusoo ogyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.